madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Dani oo waji cusub ula soo baxay hoggaanka filla Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay war naxdin leh oo ku saabsan askartii uu farmaajo u diray Eritrea iyo amniga Muqdisho aan weli caga badan ku taagnayn. Afhayeenka filla Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar ayaa shaaca ka qaaday in qaar ka mid ah askartii tababarka ugu maqneed dalka Eritrea ee dhinteen xilli dhawaan farmaajo fillada ka sheegay in ciidamo gaaraya 5,000 uu ku wareejiyay Xasan Sheekh Maxamuud xafladii xil wareejinta ee dhacday 23 bishii May. Afhayeenka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in askarta qaar ay u dhinteen tababar qaarna ay si caadi ah u dhinteen isagoo aan la wadaagin bulshada tirada intee la eg tahay dhimashada. Maamulkii hore ee farmaajo wuxuu sheegay in hal askari uu dhintay askar ka soo baxday sanadkii hore waxa iyaguna ay xaqiijiyeen ilaa 7 askari inay ku dhinteen oo welina lama ogo tirada rasmiga ah ee geeriyootay. Cabdikariin Cali Kaar ayaa waxa uu yiri tababarka qaar baa ku dhintay, qaar baa jira oo iskood isaga dhintay, waalidiinta way ka warhayaan carruurtooda dhimatay iyo inta nool waana la keenayaa dalka Soomaaliya. Mana jirto dowladda Soomaaliya xilli ugu baahi badan tahay askartaas maadaama ahmiyad gaar ah ay amnigu u leedahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Afhayeenku wuxuu dhanka kale beeniyay warar sheegaya in dowladda Eritrea madax furasho ku haysato askarta maadaama aan la siin lacag dhan 50 milyan gaaraysa oo ku baxday tababarkooda, cuntadooda, waxyaabaha kale ee la xiriira nolosha ciidanka oo ku jiro xerada. Bishii la soo dhaafay markii uu xilka la wareegay farmaajo wuxuu khudbadiisa ku sheegay in 5,000 oo askari oo dhamaysatay tababarka ay diyaar u yihiin Eritrea oo dowladda cusub laga doonayo inay ka soo qaado. Laakiin warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in tirada askarta ay gaarayso 5,167 askari iyadoo aan la ogeyn sababta farmaajo u qariya inta kale. UN-ka ayaa sanadkii hore sheegay in ciidamo lagu arkay magaalada Aksum ee gobolka Tigray waxayna ka qayb galeen dagaalka ka dhanka TPLF. Lama hayo cadeymo muujinaya askarta ka dagaalamay Tigray waxaana mugdi badan uu ku jira kiiska dhalinyaradan oo 2019 ilaa 2020 uu Fahad Yaasiin si qarsoodi ah ugu qaaday dalka Eritrea isla markaana geeyay magaalada Asmara oo hadal ku jira nidaam kaligiis ah isla markaana ka go'doonsan dunida inteeda kale. Siciid Dani ayaa waji cusub ula soo baxay hoggaanka filla Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo xarunta madaxtooyada kaga qayb galay munaasabadda 1 Luulyo oo lagu xusay sanad guuradii 62 ee ka soo wareegtay markii ay xorriyadda ka qaateen gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya iyo midoogii waqooyi koonfur iyo curashada jamhuuriyadda Soomaaliya 1 Luulyo sanadii 1960. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa hadalkan jeediyay xilli uu ka qayb galay munaasabadda lagu xusay 1 Luulyo. inta lagu guda jiro hadal jeedintaas, Siciid Dani ayaa waxa uu soo hadal qaaday isbedelka ka dhacay waddanka Soomaaliya. intii uu ku guda jiray hadal jeedinta, Dani ayaa soo hadal qaaday isbedelkii ka dhacay Soomaaliya gaar ahaan doorashadii heer federaal uu ka mid ahaa musharaxiinta isku soo taagay jagada ugu sareysa dalka Soomaaliya. madaxweynaha Puntland ayaa wuxuu si cad u ballan qaaday inuu la shaqayn doono ra'iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre kaasoo la filayo in dhawaan uu soo dhiso golo wasiiro oo tayo leh. waxa uu yiri Siciid Dani waxaan cadeynayaa in aan la shaqayn doono madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha federaalka ee Muqdisho ku sugan. Xamse ayaa ballan qaaday inuu soo magacaabi doono golo wasiiro oo ay ku badan yihiin mudanayaal ka tirsan golaha shacabka. intan ayaa waxaa loo arkaa isku day oo ku soo jeedinayo codka xildhibaanada. hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha maamulkaasi Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa u muuqda mid uu doonayo inuu saami ku yeesho golaha wasiirada cusub ee dhawaan uu soo dhisi doono Xamse Cabdi Barre maadaama uu waayay labadii jago ugu sareysay dalka Soomaaliya oo kala ahaa tan madaxweynaha isagu uu isku soo sharaxay isla markaana wareegga labaad uu soo gudbay iyo waliba in laga talageliyo isla markaana uu soo dhisto ra'iisul wasaare dhankiisa ka yimaado taa uu ku guuldareystay isla markaana uu uga adkaaday Axmed Madoobe oo isku haleynay isla markaana ahaa laba saaxiib aad isugu dhow oo isku fikiriyay siyaasad ka ahaa in meesha laga saaro xukunkii farmaajo balse moodo in hadda siyaasadda ay ku kala tageen. arrintan ayaa waxay muuqanaysaa in Siciid Dani hadda uu la soo baxay waji kale oo ah inuu kalsooni ka raadsado Xasan Sheekh iyo Xamse si wasiirada ugu muhiimsan ee xukuumadda la soo dhisayo uu talo ku yeesho. ugu dambeyntiina haddii aan eegno waxaa sii xumaanaya amniga magaalada Muqdisho iyadoo kordhayaan burcadda xillida habeenkii geysanayso dilalka iyo dhaca. isku socodka degmooyinka qaar ayaa yaraaday wixii ka dambeeyay salaada maqrib sababo la xiriira caasimadda amni
xilligan uu ka jiro amni khalkhal geliya shacabka inay isku socdaalaana. booliska ka howlgala caasimadda ayaa ku guuldareystay sugidda amniga xilli ay kordhayaan cabasho dadka rayidka ah. dadka ku nool Muqdisho ayaa madaxda dalka Soomaaliya iyo hoggaanka cusub ee hadda dowladda horkacaya ugu baaqay inay wax ka bedel ku sameeyaan xaaladda amni ee Muqdisho oo iminka meel halis ah maraysa. caqabadaha amni ayaa ku biirsatay dhibaatada ay dadka Muqdisho ay u qabaan kooxaha dhibaatooyinka ku hayo oo gudaha iyo magaalada ka geysta falidii ku ah amniga. waxaa u sii dheer ciyaal weero dhibaatooyin badan u geysto shacabka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir. waxaa sii xumaanayo amniga caasimadda iyadoona habeenkii markii wadooyinka Muqdisho la marayo dadku ay ka baqdeen qabaan in laga qaato waxyaabaha jeebka ugu jiro sida moobeelada iyo lacagaha yara. waxaana aad u soo xumaaday amniga magaalada Muqdisho xilli weli uusan jirin isbedel muuqdo oo lagu sameeyo laamaha amniga ee gobolka Banaadir.